وورين وحنا يا بكر عبد الله محمد كان مد خويسك وريه حسين عبد الله محمد وحلي مقربنimadi lagu xiray magaalada Muqdisho حسين عبد الله oo walaalkay waxa xalay maqribnimadii lagu xiray Muqdisho gaaraan waxa xiray hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya sida aan wada ognahay حسين عبد الله محمد waxa uu kamid ahaa wariyaasha Soomaaliyeed ee sida hagar la'aanta ah ula shaqeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu kamid ahaa wariyaasha farakutiriska ah ee soo gudbiya horumarka ka jira waddanka Soomaaliya حسين wuxuu si shuruud la'aan ah oo aan mushaariicdu ku siinin ula shaqeynayay dawladda isagoo waliba dhan walba oo dawladda ah ka caawinayay oo dhamaanteen aan wada ognahay حسين xalay maqribnimadii ayaa la xiray ilaa iyo maanta xilligan ay hadlayno wax warbixina kama hayno meeshuu ku sugan yahay ma ogin cidna la soo xiriirta ma jirto xarigiisa looma marin jidkii saxda ahaa ee wax lagu xiray waara looma soo jarin ciidamay soo ogeysiinin sidaas darteed annaga oo qoyska iyo bahda reer Cabdulla Maxamed waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka Soomaaliya in حسين Cabdulla Maxamed si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo sii daayo waxaan si gaar ah taliyaha nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloosh ugu baaqaya inuu حسين Cabdulla Maxamed sii daayo si shuruud la'aan ah kan qoys ahaan ma rabno inaan media wax badan marino ma rabno inaan wax badan sheegno wax badan ayaa xeerinaynaa dawladdu waa dawladdeeni ixtiraam badan baan u haynaa waana u shaqeynaa iyadaanu mar walba taageersanahay laakiin waxaan ugu baaqayaa in xarigaasi maadaama aan loo marin wado sax ah oo jid sax ah loo marin waxaan ugu baaqayaa in si degdeg ah loo sii daayo taliyaha cusubne waxaan ugu baaqayaa inuu arrintan ka fiirsado waxa uu joogaa muddo gaaban waxaan qiyaasayaa wax ka yar 10 maalmood inuu xafiiska joogo waxaan ugu baaqayaa inuu si degdeg ah u sii daayo wabillahi tawfiiq